بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بمحض إسكاله سيدا أكبر قبطان وحان هاد إيو جير إذا لسعود سينا حالadaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir sida caadada uu ahaan jirtay Ilaahay mahadi weeye dhanka amniga nafis fiican baa ayaan tan jira shaqooyin badan baa la qabtay laamaha amniga howlo badan iyo arrimahaas ka qabteen Ilaahay baa mahad leh nafis fiican iyo nabad lagu naaloo karayaan hadda haysanaa dhanka siyaasadda sidoo kale ka gobol ahaan wixii federaalka dhanka federaalka jiraan inaga waxaan noqosay oo kaliya gobolka Banaadir sida ka warqabtaan hadda amniga iyo siyaasadda aan haysano waxay ku timid waqti badan iyo juhdi la geliyay iyo maskax badan iyo maal ku baxay waxaana looga baahan yahay inaan amnigaas aan haysano hadda aan haysano aan ku far adeegno oo aan ku mintidno si aan ugu mintidnana waxaana looga baahan yahay inaan la nimaano mas'uuliyad iyo xigmad inaan la imaanana looga baahan yahay waa dhici kartaa mararka qaar inay dad isku dayaan inay danahooda ka dhex arkaan saas daraadeedna ay ku qasabto in ay arrimaha amniga mararka qaar siyaasadeeyaan xafiiska amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo kaaliye u ah gudoomiyaha gobolka duqa magaalada u ah oo shaqada nooga sareeya mas'uuliyadna saaran waxa ay tahay sidii mas'uuliyadiina naloo igmaday aan uga soo bixi lahayn oo dadka gobolka Banaadir iyo caasimada ku nool ay nabad ku saxal lahaayeen ugu soo kici lahaayeen wax kasta oo arintaas duraya ama liddi ku ah ama xaraqad ku hayana mas'uuliyad yaa naga saaran inaan ummadan u sheegno annaguna qaabkii markaa noogu haboon oo aan la macaamili karno aan u wajahno sida ay ka warqabtaan maanta waxaa idaacadaha ka hadlay nin kursigiisa lagu muransan yahay xildhibaan hore Cabdullaahi Maxamed Nuur oo aniga ahna saaxiibanahay oo xafiiskay ka tirsanaa jiray 10 sano ka hor intii aan dowladda Turkiga Soomaaliya u soo gudman ka hor oo sheegay inuu bixiyay ogolaansho in la isku soo baxo oo magaalada dad isku soo baxaan arintaas waxaan oran karnaa waa arin qariska tuurnimo ah waa arin mas'uuliyad darro ah waxay ahayd inuu sugo inta la xalaaleynayo sababtoo ah wuxuu markii ay sharci yihiin sharciyada muxuu ahaa qayb ka noqon karaan horena waan u sheegay haddana waa ku celinayaa laamaha amniga ee gobolka Banaadir ma aqoonsana wada shaqeyn lama leh lamana shaqeyn doonaan haddii aanu waafaqin sharciyada dowladnimadu ku dhisan tahay taasna sidii aan horey u sheegay waa qariska tuurnimo iyo isxalaaleysi la rabo in maartay xafiiska lagu boobo laakiin sidii dhowr mar aan sheegay arrimaha noocaas ah inta anaga joogno gobolka Banaadir kama socon karaan waa dadku xaq ay u leeyihiin waa dastuuri waa wax aan hadal la gali karin in dadku isku soo baxaan haddii ay duruuf jirto markaas qasabtay oo fikradooda ay muujiyaan laakiin waxaa jira tilmaamo iyo habraacyo ka horeeya arrintaas oo ay tahay in la maro sida ka warqabtaan xaalado amniga dalka iska jira covid yaa weli xaaladiisii taagan tahay marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno ilaa ay hadda ma jirto wax ogolaanshiyo ah oo aan bixinay oo ku saabsan in isku imaatin nooci oo raba ah la sameeyo sidoo kale ma jirto cidna soo weydiisatay oo ogolaansho arrin sidaas ah nagu soo weydiisatay dadka waxaan leenahay idinku albaabka arki kara daaqada marraba ha ka soo gelinina albaabku idin furan yahay dowladdu idin furan tahay waxaan leenahay soo dhawaada albaabka ka soo gala ee dowladnimada daaqada ha ka soo gelinina yaanu muxuu ahaa qof shaqo doonaya yaanu idinku xalaaleysan si uu shaqo isagu idinku helo taasna intaasaan ugu gudbayaa dadka gobolka Banaadir jooga waxaan mar kale ku adkeynayaa
walaalayaal waa ka warqabtaan dhibaatada loo soo maray amniga maanta la haysto in lagu naaloodo dhibka loo soo maray waa ogtihiin arrimo siyaasadeed oo laga yaabo inay ka baxsan yihiin xayndaabka gobolka banaadir annaga aan ku noolnahay yaanay muxuu ahay naga weecinin guusha aan gaarnay aan ku far adeegna amniga laamaha amniga halala shaqeeyo gacan hala siiyo haddaba muddadii koobaad ee aad bilowdeen inaad laamaha amniga gacan siisaan waad aragteen horumarka amniga laga sameeyey waana mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin